kulankan maantay wuxuu qayb ka yahay kulamadii baryahan degmooyinka ka socday inta badan habeenkii ayaa la qaban jiray laakiin waxaa maalin looga dhigay in mas'uuliyiintoodu ay badato inkastoo galabtu ay tahay waqti aad u gaaban waxaan ka rabnaa mas'uuliyiinta labadan degmo inay dib isugu noqdaan oo dadaal dheeraad ah ay la yimaadaan marka loo baahan yahay Soomaaliya meeshay doonto ha ahaatee culimo degmooyinkana laga waca marka loo baahan yahay akhyaar ahlul hal wal aqd ah marka loo baahan yahana waxa laga wacaa labadan degmo kaadirin aqoon-yahano ah ee siyaasiyiin ah soo jireen ah ee siyaasadda wax laga weydiiyo marka loo baahan yahana degmooyinkana laga wacaa ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligaas uu siiyey ummadda halkan ku nool haddana waxaad moodaa inayan war ka hayn gobolka banaadir intiisa kale iyo dadaalada bulshadu ay wadaan bulshooyinka degmooyinka kale qaara ayagu inta qaaraanta waxooda laamiyada dhistaan qaarna interlog ay sameeyaan ayay wadooyinka saartaan markaasay yiraahdaan waa dhisanay kaalan oo xarig jar ayay yiraahdaan qaar ayaa guryahooda si bilic badan qurux badan u dhista oo iskuulo iyo jaamacada ka dhigta iskuuladaas iyo jaamacadahaas ardadooduna halkaan ay ka baxaan ay ka tagaan macallimiintooduna halkaan ay ka tagaan marka ayagoo daalan oo macallinkuna daalay uu safar ku yimid dhowr degmo soo jeex ardaguna sidoo kale geliga dambe isugu imaanay sababta aan u leeyahay mas'uuliyiinta degmooyinkaanu dib ay isugu noqdaan waa midaas aniga gudoomiyaha gobolka ahaan duqa magaaladan waxaa ii magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda inta u imid madaxweyne aniga ii magacaabo ma dhihin laakiin asigaa ii gartay markuu ii magacaabayay oo ii soo jeediyey oo aan aqbalay oo ila dardaarmay wuxuu yidhi dadkan degan gobolka banaadir dhibaato badanaa ku dhacday dhaqaalahooda waa burburay tacliintooda waa burbureen goobaha waxbarashada iskuul yani goobaha caafimaadka isbitaalada waa burbureen wadooyinka waa burbureen bulshada waa burburtay waxaa laga rabaa burburkaas inaa ka bi'iso oo aad wadooyinka u dhisto oo aad qulubta u dhisto oo aad bulshahana u dhisto oo iskuullada aad u dhisto oo aad u dhisto suuqyada oo aad u dhisto goobaha waxbarashada caafimaadka wadooyinka bulsho dhisan oo beled dhisan ku nool inaad ka dhigto ayaa laga rabaa saasaa lagu dirwi arrintaas dardaarankaas anoo fulinaya ayaan waxaan isu xil saaray inaan meel kasta oo muqdisho ah oo dayacan aan ku dadaalo inaan dayaca ka bixiyo waxaan idin xasuusinayaa waxyaabaha lagu dayactiraayo aniga hal shilin lama iman hal shilin oo aniga aan leeyahay oo anigu intaan keenay aan ku dhisaana ma jiro waxa aan ku dhisaa wax bulshada laga qaado waa
wuxuuda ayaa wax ugu qabanayay madaxweynuhu lacagtan qaada wax ku qabay ma dhih laakiin ayaga wuxuuda wax ugu qabo waay macnaha ha ahaato ummado kale oo la kaashado ha ahaato ayaga waxa laga qaado wax lagu qabanayo horta waa midaas wixii niwa waxa la rabaa marka dabcan canshuuraad dhiibtiin canshuurtiina in wax leedu qabto oo aad xaq u leedihiin inaad fahamtiin yani canshuurtiina in wax leedu qabto inaad xaq u leedahay horta inaad fahamtiin waxa la rabaa waxii dawladda maadaama culayso badan ay haystaan dawlad dagaal ku jirta ay tahay wixii kaloo adinku aad qabsan kartiin ama wadda ha ahaato ama xarun maamul ha ahaato ama suuq ha ahaatee waxaad qabsan kartiin inaad inta qaaraamataan aad dhisataan waa leedu karba bulsho isku duuban oo wax wada qabsanaysa inaad noqotiin laydinka raba marka aan isku dayo inaan degmooyinkan meel ka mid ah aan wax ka qabto waxaan ku dhibtooda inaan fahamsiiyo inaan wax u qabanayo dardaarankaasaan u socdaa wuxuudii aan u wadaa wax ugu qabanaa inaan fahamsiiyo inaan ayaga wax ugu qabanaa inaan fahamsiiyo ku dhibtooda markaan runta idiin sheego suuqa hadda Ismaaciil sheegayay ilaa aan xirxiro odayaashoodii waa diideen nolol dhismayr ma barnaba haddii aan qalbiga ka boko waxaan dhihi lahaa ma diideen haa bis meelo kale aan u qaadi lahaa moogta in ayaga ku dirqiyeen wati waxaan isku dayay isbitaalka Laasleeti oo aad ogtiin baaxadiis intuu leeg yahay ee inta bukaan oo kala duwan lagu daaweey jiray 30 sano burbursan wax laga qabtay ayeen jirin inaan wax ka qabto dacwadii buuqay mid waa baabeen isbuuc gudihiisa marka la nimid anoo raba inaan xarun emergency oo gargaarka degdega aan laga qabto muhiim u ah bulshada saraakiil ay tibid hebel ma rabo inay iraado markaas ay guriga ka dhisan rabnay adiga maxaa naga soo doodo mashruuc xaqiiqda meesha ku jirta marka taas marka waxaad ka rabaa waqti ma haysano wala aadaamay akhyaartiinu inaad isxilqaantiin bulshada kuwa wax u dhima oo aan laga horumari karin ama qori hawato ama qalin hawato ama si kale hoo qaribnaade ina u run sheegtiin oo tira adiga ka joog la dhaadina la dikaro waxa la rabaa haddii midka oo jeelle sheegayo qoriga wata ama Ismaaciil sheegayay ee baadaya dadka intuusan baada adiga kugu keenin ina ka hortagtaa laga rabaa baada intuusan adiga kugu keenin oo ummadda kale ku haayo waa ogtahay waxa laga rabaa marka aqbaleen in la yiraahdo odaga aabihii ama adeerkiyo baakoor wata hadoo u tago waraa wallahi waa ku garaaca yaa jooji waxa haysta dhig qoriga dooro waa dhiga kuma dhacayo qofkii dhibaatadiisa xalinaya inuu xabadeeyo kuma dhacayo miirkiisa waa qaba waa loo yeelay marka adeerayaalow walaalayaalow ha u yeelina ee qabta haddii ay ku cuslaadaan dawladda la kaashada dawladda awood ay leedahay laakiin ma rabto wiilkiina ama gabadhiina fasaasare gadaashiina ku jirta gabdhaha hadda waaba fiican yihiin ma ismaqlayna wiilashiina marka gadaashiina ku aadsatiin maalin walbana ay dhibaato sameynayaan oo ama bulshada ku sameynayaan ama dawladda ku sameynayaan in inta adinka laydin jiiro laydin dardaro ayaga la doono dawladda diyaar uma maxay yeelay dawladdu dadkay u adeegtaa waxa la rabaa marka adinku ka hormara min fadlikum kuwa boko dhibka wada oo aan guriyaha laga dhisay guriyaha waxa la rabaa in bilicda magaaladan laga shaqeeyo meel walba laami ay noqoto meel walba ay interlock noqoto nal ay noqoto la dhalaalo bulsho dhalaalayso qurxoon inay noqotiin marka dadku lacag ay haystaan
laakiin sababtay jiingadaha ugu jiraan waxay tahay dhibaato haysata wiilashiina dhibaato ku haya